kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasta joogtaan ku soo dhawaada wararka Soomaalida iyo caalamka intiisa kale qodobada wararka aad ku daawan doontaan waxa kamid ah madaxweynaha Soomaaliya oo madaxda dalalka Djibouti iyo Qatar kala hadlay la dagaalanka cudurka COVID-19 ururka al-shabaab oo weerar qaraxyo ah ku qaaday garoonka diyaaradaha ee Barawe oo dhawaan uu xariga ka jaray ra'iisul wasaare Khayre saldhigyada ciidamada Mareykanka dalka Djibouti oo xaalad degdeg ah la galiyay cudurka coronavirus awgi sidoo kale qodobada kale aad wararka ku daawan doontaan waxa kamid ah tirada kiisaska coronavirus oo wali sii kordhaysa dalka Soomaaliya iyadoo hal cisbitaal oo kaliya loo hayo la dagaalanka cudurkani qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararka Soomaalida iyo caalamka intiisa kale mar kale kulanti wanaagsan daawadayaal Ramadaan wanaagsan waa Jimce 24 bisha Abriil sanadka 2020 aynu ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu khadka teleefanka kula xiriiray dhigiisa dalka Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Gelle iyagoo ka wada hadlay labada mas'uul dhibaatada xanuunka COVID-19 uu ku hayo caalamka gaar ahaan dalalka Djibouti iyo Soomaaliya madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in labada dal ay sameeyaan iskaashi dhameystiran si xanuunkan looga guuleysto sidoo kale Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu madaxweynaha dalka Djibouti Master Gelle uu la wadaagay in shacabka iyo dawladda Soomaaliyeedba ay aad uga xun yihiin dadkii ku dhuftay caasimada dalkaasi Djibouti oo saameeyay dad badan oo danyar ah dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu khadka teleefanka kula hadlay boqorka wadanka Qatar boqor Tamiim bin Hamid Al Thani waxayna ka wada hadleen sidii Soomaaliya iyo Qatar ay isaga kaashan lahaayeen sidii looga adkaan lahaa xanuunka faraha baas ku haya dunida ee coronavirus madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in kaliya xanuunkan haatan dunida aafeeyay ee COVID-19 looga adkaan karo iskaashi ay sameeyaan dawladaha caalamka si taasi loo gaarana Soomaaliya waxa ay si dhow la shaqaynaysaa buu yiri Master Farmaajo dawladaha uu kala dhaxeeyo xiriirka wanaagsani tirada cudurka coronavirus ee Soomaaliya ayaa sare u sii kacaysa maalin kasta iyadoo dhimashadu ay haatan kor u dhaaftay in ka badan 16 ruux kiisaska dadka cudurka laga helay ayaa kor u dhaafay 300 oo qof kuwaasi oo in ka badan 80% dadka laga helay cudurku ay ku sugan yihiin magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyadoo haddaba ay maalin kasta kordhayso tirada dadka u geeriyoonaya cudurka iyo kuwa uu asiibayo cudurku ayaa haddana waxa jira oo kaliya hal cisbitaal oo guud ahaan Soomaaliya kaasi oo dawladda Soomaaliya ay u qorshaysay in lagula tacaalo cudurka coronavirus cisbitaalka Martine ayaa haatan ah cisbitaalka kaliya ee la jiifiyo bukaanada uu soo rito cudurka coronavirus waxayna dawladda Soomaaliya ay dhawaan sheegtay in ay tababar u samaysay kooxo loogu talagalay in ay aasaan dadka u geeriyooda cudurkani Dr. Cabdirasaaq Badruddin oo ah la taliye ka tirsan wasaaradda caafimaadka Soomaaliya waxa uu sheegay in bukaano ka badan 200 oo qof ay yimaadeen cisbitaalka Martine halka ay haatan la tacaalayaan 17 bukaan iyadoo ay ku dhex dhinteen cisbitaalka 3 bukaan oo ka mid ah dadka cudurkani u geeriyooday balse warka wanaagsan waxa uu yahay in xanuunkan ay Soomaaliya gudaheeda dadka bogsadeen Bashiir Aadan ayaana ka mid ah bukaanada xanuunkan ka soo ladnaaday isagoo oo sheegay in si fiican loogu adeegay wacyigelin iyo bandow lagu soo rogay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ayay dawladda Soomaaliya sheegtay in ay xanuunkan kula tacaalayso waxaase haatan la galay waqti adag oo bishii Ramadaan ah maadaama bulshada Soomaalida intooda badan ay yihiin xoogsato muruqmaal ah kuna adag tahay in ay guryaha joogaan waxa uu bandow ku noqon doona caqabad aad u adag sidii ay noloshooda u maareyn lahaayeen waa tahay daawadayaal wali waxaad nagala socotaan wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka intiisa kale markana war kooban isla wararka cudurka coronavirus ee Soomaaliya ayaanu ku guda jirnaaye waxa maanta magaalada Muqdisho ku geeriyooday Dr. Yuusuf Axmed Hiraabe iyadoo la sheegay inuu geeriyooday xanuunka COVID-19 wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa tacsi u dirtay ehelada marxuumka iyadoo Dr. Yuusuf Axmed Hiraabe uu ka mid ahaa koox diimeedka al-saadicuuna bil haqq faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar qaraxyo ah oo maanta ururka al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamada Uganda ee AMISOM ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha ee magaalada Barawe ee gobolka Shabeellaha Hoose wararka laga helayo waxa ay sheegayaan in gawaadhi laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa la beegsaday saldhig weyn oo ciidanka AMISOM ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha ee Barawe isla markaana qaraxyada kadib la maqlay rasaas xooggan gudoomiyaha degmada Barawe Cumar Sheekh Cabdi ayaa sheegay in ciidamada AMISOM ay rasaasayeen gaadiid uu ku xidhnaa qaraxyada isla markaana midkood uu ku qarxay afaafka hore halka kan kale meel aan sidaasi uga sii fogeyn uu ku qarxay garoonka diyaaradaha ee magaalada Barawe
sidoo kale gudoomiyuhu waxa uu sheegay in burbur xoogani uu soo gaadhay garoonka diyaaradaha ee magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose. dadka degmada Baraawe ayaa qaarkood waxay sheegeen in ay maqlayeen dhawaqa qaraxyada hase ahaatee aanay caddayn karin khasaaraha ka dhashay halkaasi, waxaana degan xaaladda magaalada Baraawe maadaama saldhiggu uu ku yaalo bannaanka degmada Baraawe. dhaqdhaqaaqa al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkan iyagoo sheegay in ay khasaare xoogan gaadhsiiyeen ciidanka AMISOM ee halkaasi ku sugan, balse ma jiro war kale oo ka soo baxay AMISOM iyo dowladda Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaana dhowaan xadhiga ka jaray garoonka ay beegsadeen ururka al-shabaab ee degmada Baraawe, iyadoo oo dowladda Soomaaliya ay horey u sheegtay in garoonkaasi ay ku baxday lacag ka badan 4 milyan oo dollarka Mareykanka ah. wararka laga helayo dalka Djibouti ayaa sheegaya in haatan ay sare u kacday tirada dadka laga helayo cudurka coronavirus, iyadoo ay ku sii dhowdahay ku dhowaad 1,000 ruux. Djibouti oo ah dalka ugu badan kiisaska coronavirus ee dalalka Geeska Afrika ayaa dadka laga helay cudurka waxaa ka mid ah askar ka tirsan xerooyinka saldhigyada militari ee ku yaala dalkaasi. askartan uu cudurku soo ritay ayaa waxaa ka mid ah askar ka mid ah saldhigyada Mareykanku uu ku leeyahay wadankaasi. war ka soo baxay taliska Afrika ee ciidamada Mareykanka ayaa waxaa lagu sheegay 2 saldhig oo ay ciidamada Afrika ee Mareykanku ay ku leeyihiin dalka Djibouti in la geliyay xaalad degdeg ah oo caafimaad dadweynaha, sida lagu sheegay war-saxaafadeed ay soo saareen taliska Afrika ee ciidamada Mareykanka. Michael Turello oo ah taliyaha ciidamada Mareykanka ee howlgalka Geeska Afrika oo qoraal soo saaray ayaa waxa uu sheegay in la dagaalanka COVID-19 awgi ay muhiimad gooni ah siinayaan, isla markaana ay ahmiyad u leedahay xaaladda caafimaad iyo la dagaalanka cudurkani. dhowr ka mid ah ciidamada Mareykanka ee Djibouti ku sugan iyo shaqaalaha rayidka ee ku sugan saldhigyada Mareykanka ee dalkaasi ayaa laga helay xanuunka COVID-19, waxaana guud ahaan haatan caalamka tirada kiisaska cudurka coronavirus ay gaadhay in ka badan 2 milyan iyo 700 oo kun oo ruux, halka ay cudurka u haatan u geeriyoodeen ku dhowaad 200 oo kun oo ruux, iyadoo ku dhowaad 1 milyan oo ruux ay cudurka haatan ka soo bogsadeen. waxaana cudurku uu maalinba maalinta ka sii dambaysa ku sii fidaya dalalka caalamka. wadanka Mareykanka ayaana ah kan ugu daran dhinaca fiditaanka dhimashada iyo weliba dadka xanuunka laga helayo. waa tahay daawadayaal, intaasi waxa ku dhan wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka intiisa kale oo idila socodsiinaya anigoo Khalid Fodadhiya. tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.